waxaan se uun yar tilmaamayaa qodobo xogay qodobo oo xeerarka sida loogu tuntay iyo kuwa la gees maray ayaan in yar ka taaban lahaa. Somaliland marka ay maalgelin samaynayso ama cid shisheeye ay maal gashanayso waxay u samaysatay xeerka la yidhaahdo foreign investment law ama xeerka maalgelinta shisheeye. waa xeerka lambarkiisu yahay 29 ee 2004 soo baxay. xeerkaas wuxuu abuurayaa board qodobkiisa shanaad baa wuxuu samaynayaa board ka kooban agaasimayaal guud oo wasaarado door ah sida wasaaradda qorsheynta, wasaaradda maaliyadda, wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha, wasaaradda xanaanada xoolaha, wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda, wasaaradda beeraha, agaasimaha guud ee banka, gudoomiyaha chamber of commerce ama maxaan ku rahday rugta ganacsiga. wasaaradaha doorka ah iyo labada institution kale ee banka iyo rugta ganacsiga agaasimayaashooda guud baa boorkii ah. waxaanu xeerkaas u awood siinaya maalgashi kasta oo la samaynayo inay ka go'aan gaaristiisa leeyihiin guddigaas. waa qodobka shanaad ee xeerka xeer lambar 29 looma marin. xeerkaas waxa kale oo cadeynaya procedure-kii loo mari lahaa marka maalgelin la samaynayo ilaa application-ka ay soo qoranayaan hay-adaha maalgelinta samaynaya hadday dawlad tahay iyo hadday shirkad tahay qaabka u soo qoranayso ee ay u soo codsanayso iyo maalgelinta sida u samaynayso documentation-ka sida u soo gudbinayso iyo halka laga diiwaan gelinayo waxa soo dhan buu xeerkaas tilmaamaya. gebi ahaan xeerka waa lagu tinto waa laga boodi. dabeedna waxay noqotay procedure-kii la raacilaa iyo ciddii mas-uuliyadda lahaydna waa laga tallaabsaday. heshiis marka la sameeyena looma raacin isagana ansixintiisa dastuurka qodobkii 3 ee ay ahayd in baarlamaanka laga ansixiyo heshiis dhan. by the way heshiis marka la leeyayna waa wax dhamaadoo darafyadu saxeexeen dhinacyadii ay ka wada galay markay saxeexeen baa la yiraahdaa waa heshiis. ilaa labada heshiis labada saxeex ay ku dhacaan dhinacyadu ama wixii ka badani heshiis ma hadee wax kala ku sheeg ama daraaf leh ama ma garanaysayeen soo jeedin leh ama waxa kala aad sheegaysan bindingna cidina kuma noqoto ama ma qabto cidnaba ilaa labada dhinac ay isla dhameeyaan ay saxeexa ku dhuftaan. marka saxeexa lagu dhuftaabuu dastuurku waajibinaya in baarlamaanka la horgeeyo oo maxaan ku dhahaa baarlamaanku ansixiyo. waxaynu ka warhaynaa ilaa maanta inaan heshiiska dekadiiba la wareejiyay cid kala gacanta ku hayso inaan heshiiskii lagu wareejiyay aanu golo baarlamaan la horkeenin oo aan la ansixinin. sidaan uu markaa ku yahay sharci darro. waan ka hadlay procedure-kii loo mariyayna inuu khaldanaa. heshiis xisbiga wadani siduu odaygu sheegay inay heshiis maalgashi la gasha cid marnaba ma diidana waa soo dhaweynayna. laakiin in yar ku danaysato oo ummadda ka qariso oo cid walba laga qariyo oo waxa dhowta inugu qarxi doona in yar ay malmaluuqato dee ummaddu waxay baarlamaan u samaysatay wakiil ka ah inay wax walba u ogaato sharcigana ugu samaysatay inay heshiisyada ka eegto waa sidaas oo kale weey. laakiin ilaa maanta ummaddu waxa lagu harowsanaya dokumenti yar af Soomaaliya oo ama aan dhinacyo saxiixin hadduu xataa luqada Ingiriisiga ku qoraya ama ajnabiga oo ay waliba ku cadayd inaanu documentation ka waxa ku qoran cidnaba aan xidhin ay ku qorayd ayaa golayaal hormariyo ilaa imaka kaasana inooga dhigaya inuu heshiis yahay baarlamaan ansixiyay aqligii ummadda lahaaya markay sidaa tahay. marka waxaan leenahay ummaddu ha ogaato oo ha ku baraarugto in wax xisbigu ugu yeeraya aanay ahayn heshiis iyo maalgelin hal la diiday ay tahay ku danaysiga in koobari ay ku danaysatay oo waxaan inoo cuntaban ay ku qarsatay oo dabeedna ilaa maanta muhmalka inagana uu inaga jiro oo maalin walba aynu maqallo waxaan hore loo hadalhayn oo soo baxa
أما واحد هذا الهيي أو بيروبة أنت بينو مغليني شركات بان الصناعين إنه ده كده جعنت قوة قبل دونتو بور كده سيدا لوكال اللي صومينا مغل مية ترتاح شركات لو ده اللي ينجي دي بي ويلد أو ده كدي إنه معمول إيسا سو دي بي ويلد كل جد نبورتي أو كل جد الله ما تقوم تصرفته أو معلول بالعكس هذا ما حولته يدور عيدنا اللي أوجي بشي بمالك تكتا أي شغالة وبرهبته أنت كل اللي حولته وإحنا نورنتشري سنة جوديه هديد كده عسول بلاد وياه هشيسكم هو بريء إلا ما أنت السنة دوا صورنا فيه ميون هينا ده كده عسولية هذا الكيد يبلوجين من ده ميون هينا وما يوي معلومة بوح النار كنا واحد بيروبية أو واحد نينوش يجيه ومد اللي جود السيء أو معلومة بيروبية بالنار كنا مركا هرت الديب بيوال واصلة حرام بي إلا ما أنت كتشوكته حسب جوه الدين يعني وحرام كتشوك إيه هدي أي حلالة هيان وهي حلاش على صومريو وده بيعيل خيط هاي أنت أصلا كورن لا وحن وجود بيا شركة ده لا يروح على ده السومال لاند إنفستمنت كمبني إيه سجنا لا سما يستي شركة ده واحد نوجنا هنا ذلك له هذا اللي قد ديوان قل ذلك اللي يولي كم ديوان كشنا هذا الشركة عن ذلك هذه بكد ديوان كشنين إن يدلك الله مع مشون اللي قد ديوان قل يا والله حرام مركز هرب حرام دل بينوني نبو هدو كمبني أما شركة ما أنت ينوت معطو مركز ترى هذا الشركة بانا هاي وحباري دي مال قليلية أما وارد الله معاملية واجبو كدغيا xeerka investment loogu in la weydiiyo la eego inay xeerkii dalkooda ku diiwaan gashan tahay in la eego inagana laba inan baaytay director isaga dhigeen director oo qarankana xilal u haya markii qarankii ay hayeen bay leeyihiin markii la aamini waayay qarankii dhamaa ee asadkeedii iyo halbowlayaasheedii dhaqaalaba la haysto ayaa nala aamini waayay oo nala maal gelin waayay dabadna labadiidaas shirkad yar oo isku qoraada la maal gelinaya oo beenbeen ahon xaqna xidid ku lahayn hawada inta ka soo dhacday dabadna la yiri waxa laga diiwaan galiyo dubay meel la yiraahdo maxaan ku raahdaa financial center laga diiwaan gashaday oo aynan qarankeen iyo dalkeenu ogeyn oo ka warhayn taasina waxay tahay noqonaysaa weel xaaraana oo loo samaystay in wixii maalgashi dalka ku soo socda la ila jeebka iyaga soo mar dadka kala hadallada badanaynu ka haynay ee sida u dhaqmayay maanta ma ku aamini karaa inuu inoo soo maro maalgashi ka saa inuu iyaga inoo soo maro aamini karaaba ummadda inta kala hadalaha beenahay u sheegeen oo guri roobba wari aanay dajinin haddana annaga jeebka iyaga maalgashi kasta soo maraya xaraam bay noqonaysaa moogti waxa lagu dhaqmi karaa waxa leenahay taana madaxweynuhu ha cadeeyo qarankiina waa la aamin waay laba inana waa la aaminaya weelka loo samaystay tuugada shirkadda aan diiwaan gashanaynan xalaal dalkeeda ka ahayn ayaa dal kale nooga jiraysa waxaan leenahay dee taasina inaga inoo taalmaaha waxaan uga gudbayaa xagga biyaha ilaa Chinese-kii research-ku uu sameeyay buu ku sheegay inay biyo jiraan meesha waxaanu leenahay oo xisbigu aaminsan yahay inta kulmiye jooga inaan biyo la kabanayn waxaan ka warhayaa anigu biyaha geed deeble ee la ballaarinayo ee ilaa horaad la gaarsiiyay 2015 bishii December ayay qorshaysteen in la furo oo ay biyo Hargeysa soo gaaraan waxa lagu la hadal hayn jiray war 6 bilood horaha loo soo raro oo intaan mandate-ka kulmiye aanu dhamaanin ka hore oo ku ekaa June 2015 لحظة بلاد هلا صور رأي هذا الهنجي ما تتوسن أي دي بينو مرينا ما راح ينو كواب جد دبلي هي كواب وين مدانا هذا الكذا ما هينو وهلا هالكانا لو هلاكتينا العبين أنت كل بيجي بتشوقي ومضوا هالكا يا مركورنا وقلت أنت مركيدو هراك كنت تقولي بتاعي ترى قدام كسيرنا ما أنت روح إنه بدو شيءنا إن أنا عبين إن أنت كل مية وثلاثة شوقو إن أنا عبين بدو شيءنا كل مشارك تعلون النتاج إن ما ظهرا article 24 وحركة بحانكور هذا اسمهم كقبلة يدك بويك أيها سيد قدومي وشجع حاران تنمين أيها إن حدبان أو حساندني لا حرا حدي عن مركز يسوق الدب قعنت كل شيء الله إيمان أما عن قوله سي
inta xasaanada laga soo qaado dambi uu hore u geystay marka aan lagu soo oogin labada xaalad midna jirin sifaha aftuubka ah ee loo soo xaraystay iyana waxaan u leenahay waa meel ka dhac sharciga dalka loo bareeray waana mid muwaadin kasta sugaysa in sidaas oo kale loogu bareero haddaan muwaadiniintu dhan uga soo wada jeedsan xukuumaddu sharciga jabinayso intaasaan ku dar lahaa wasalaam calaykum